asmana wararkaasi waxba kama jiraan asaga ehelkeeda ah. ma aysan geeriyoon Asma Suuban sida uu inaa xaqiijiyay walaalkeed, waxaana halkan kula wadaagayaa daawadayaal xogo in ka daahsoon oo in la wadaagayo. waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka inoo share gareysaan, sidoo kale tan gambaleelka subscribe-na aad tiraahdaan si mar walba aad ugala socotaan xogihii ugu dambeeyay. mahadsanidin. Asma Suuban oo kamid ah gabdhaha caanka ka ah barta TikTok ayaa mar qura waxaa barta Facebook ruuxay tacsida ku aadan in gabadhaasi geeriyootay. hase ahaatee ehelada Asma Suuban ayaa inoo xaqiijiyay in gabadhoodu ay nooshahay, aysan geeriyoon, ayna ku ogyihiin goob waalidiinta iyo sidoo kale walaalaheed ay geeyeen. Asmo ayaa markii ugu horeysay waxay waalidiintoodu si dhaqan celin ah ugu xireen saldhigga degmada Waaberi, kadibna waxa ay u dhaadhiciyeen goob lagu dhaqan celiyo dadka, iyagoona waalidku ka xumaaday qobka ciyaarkii ay gabadhaasi la dheelaysay fanaanka qadarkeeyo, kaasi oo keenay in dhammaan waalidiinta ehelada Asma Suuban ay ka xumaadaan muuqaalkaasi. sidoo kaleete Asmo ayaa waxaa ku dhacay arrin anfariir la ah kadib markii wiil ay kala tageen oo baahiyay muuqaalo faaxisho ku ah gabadha, taasina ay keentay in Asmo xaalad degdeg ah gasho. waalidiinta Asmo oo aan khadka telefoonka kula xiriirnay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in gabadhooda aysan geeriyoon, ayna ku sugan tahay goob ay dhaqan celin u geeyeen, halkaasna lagu dhaqan celinayo. walaalkeed wuxuu sidoo kaleete inoo sheegay in dadka baraha bulshada keenay in Asma geeriyootay ay la tiigsan doonaan maxkamad, maadaama gabadhooda oo nool kuna sugan goob waalidiintu ay geeyeen ay sheegeen dadku inay geeriyootay, taasina ay tahay in meel ka dhac ay ku tahay ehelka Asmo. hase ahaatee warkaasi war ka duwan ayaa jira oo ah in waalidiinta gabadhaani dhaleen ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah in gabadhu geeriyootay, taasina ay keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay si guud u qaataan, halka dadka qaarna ay leeyihiin waalidiintu waxa ay kala jeedeen in dhammaanba qaybta TikTok ay gabadha ku leedahay hawada laga saaro oo la yiraahdo waa ay geeriyootay. hadaladani kala duwan ee ka soo kala baxay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaan si aan wax uga ogaano waxa aan qadka telefoonka kula xiriiray walaalkeed la dhashtay Asmo oo inoo xaqiijinaya sida xaalku yahay. waxaanan markii ugu horeysay weydiiyay bal inooga warbixi jawiga guud iyo sida ay wax u jiraan. waxa uu yiri walaal waan ku salaamay niyow saacadii ugu dambeeyay haddaan nahay ehelada Asmo oo ku magac dheer Asma Saban oo ahayd gabar faamilka ka tirsan. waxaan aragnay warar been abuur ah oo rag waaweyn ay ku soo qorayaan baraha bulshada, markii aad baan wallahi arrintaas la yaab bay nagu noqotay in qof walaalkood ah ay geeri u saadiyaan wax laga naxo. Asmana wararkaasi waxba kama jiraan, asaga ehelkeeda ah mataqaanaa walaalkeed anaa ah, marka niyo waxaas iska been abuur weeye. nimankaasna insha Allah maxkamad baan la taagsanay cadaaladda. waa gartay, laakiin maxaa sababay in gabadha la yiraahdo way geeriyootay? arrimaha qaar waxay sheegeen inay xiran tahay, arrintaas ka waran maxaa ka jira? horta gabadha walaashay ah adigu maalmihii ugu dambeeyay way iska xanuunsanayd. waxaa dhacday in markaasi nin qabay ayada uu muuqaalo uu ka hayay uu baraha bulshada ku faafiyo. ninkaas gabadha walaashay qabay muuqaaladeedii uu faafiyey, baraha bulshada uu geliyey. gabadhii arrintii ayada awalna iska xanuunsanayd, shoog bay ka qaaday. waa aragnay, adiga cusbitaal baan geynay, way roonaatay. hadda xataa waxay ka mid ahay dadka TikTok ugu caansan, waad fiirin kartaa 2 bari ka hor bay ku jirtay, way soo roonaatay. gabadhiina waxaan geynay goob dhaqan celin ah, goobta dhaqan celinteeda ku jirtaa. waxna kama jiraan wararka sheegayaan inay gabadha dhimatay. waa gartay, marka maadaama gabadhu hadda ay dhaqan celintaas ku jirto, dadka qaar waxa ay sheegayaan in dhaqan celintii goobtii lagu xanaaneynayay ay sun ku cabtay ay ku geeriyootay. arrintaa maxaa ka jira iyada ah maadaama ay dadku aad u hadal hayaan, dad fara badan oo baraha bulshada ugu saameynta badanna ay qorayaan in gabadhaasi ay geeriyootay? adiga marka maadaama aad walaalkeed tahay aadna noo xaqiijinaysid inaysan geeriyoon, gabadhana hadda ay ku jirto dhaqan celin,
maxaa bulshada Soomaaliyeed la wadaagaysaa runtii walaal waa been abuur warkaas gabadhaas walaasheena sunbaysan cabin tooreysan isgelin wax karaysan samayn goobtii dhaqan celinta joogtaa nimankaas ugu horeeyay cali aadan muumin la dhahana mataqaanaa waan ka daba tagi doonaa isaga waxaan shaaciyay isagana aabba iyo hooyo oranaysa dawladda Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa in dadkaas been abuurkooda la ka hesho haddii kalena mataqaanaa anaga gacanteeda isaga qaban doona gabadhaasna waxay ku jirtaa goobtii dhaqan celinta galabtii maqribkii baan wada hadalnay dhakhaatiirtii iyo sidoo kale dadkii culimadiiba way fiican tahay xaaladdeeduna waa okay haddaba walaal warji waana beenay lagu waaweeye waana kagama daba hari doono oo soo maxkamadayn doonaa waan qabsan doonaa annagana ka guman doona shaqadooda ilaa waddanka dowladda kama jirtee tuuga mooryaana isugu soo hadha walaal waa gartay marka ugu dambeyntii dadka ku daawanaya ama codkaada dhegeysanaya lana gaarsiiyey dhagahooda in gabadhaasi dhimatay maxaad la wadaagaysaa waxaan la wadaagayaa wala dadka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed in ragga ay guursanayaan ay iska ilaaliyaan gabadhaas dhibaatada ugu badan waxa u geystay nin iyada qabay oo muuqaalo iyada si khaas ah ugu dirtay oo ka faafiyay sidaas darteedna waxay keentay in gabadhii ay noloshii ay nacdo oo xaalad halis ah ay gasho sidaas darteedna ay waalato kadibna aan quraan saarno marka dumarka Soomaaliyeed fariintan u diray dadka Soomaaliyeedba waa inay ilmahooda la socdaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan xaaladooda la socdaan hadii kala Soomaa xaalad halis ah bay galayaan naxariis darro ah bay galayaan waxaan ilmuhu ku sugnay marka dambe isagu gacantiisa isku qaarijiyo sida gabadha walaashana waa hadda wararka been abuurka looga faafiyay balse annaga gacanta ku hayno waa mahadsantahay sino waxa uu ahay Asma Saban walaalkeed oo inooga warbixinayay xaaladda qoyska gabadhu ay dareemayaan iyo sidoo kale waxyaabaha ka jira in ay geeriyootay walaalkeed waxa uu inoo sheegay in arrintaasi ay tahay been abuur ayna ka timid dhanka bulshada aysan ogeyn sal iyo raad iyo toonana aysan lahayn hadaladani oo ka dhawaajiyay walaalkeed ayaa waxa uu ka hor imaanayaa hadallo muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada si fiican u ruxayay oo ahayd in Asma geeriyootay saahatee waxa uu noo sheegay walaalkeed inay ku sugan tahay goob waalidku iyo waalidiintu dhammaan ay og yihiin hase ahaatee dad ka soo horjeeda nolosha gabadhooda ay ka dambeeyaan in baraha bulshada lagu faafiyo geerida Asmo ayaa waxa ay ahayd gabadhii sida weyn u ruxday hotel Ileed kadib markii qoobka ciyaar ay halkaasi kula soo bandhigtay fanaanka weyn ee Qadar Kayo taasina ay keentay in haatan goobta dhaqan celinta ay ku sugan tahay ay sabab u noqotay muuqaalka gaaray dhanka waalidiinteeda oo sababay in la geeyo goob gabadha lagu xanaaneeyo dhaqan celinta gabadhani ayaa waxa ay keentay in qaar ka mid ah وشذا